الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برامجka falaqaynta wararka ee channelka nuxurka wararka aan kulana YouTube-ka qodobada ku jira aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya kooxda madaxweyne Farmaajo oo bilowday xaraashka hantida qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Roble arintaas ayuu ka soo horjeestay amar culus ayaana ka soo baxay xafiiskiisa halkan ayaana daawadayaal idinku soo gudbi doonaa qodobada kale aan daawadayaal halkan idinku soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya shaqaalaha NISA ama hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA shaqaalaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ka cabanaya mushaar la'aan haddaba halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doonaa caqabadaha jira qodobada kale aan daawadayaal halkan idinkula wadaagi doonana waxa ka mid noqonaya habargidir hoggaan la'aanta ayaa hoggaan ku riday ama godkaanba ku riday warbixin ayaan idinkaga heenaa daawadayaal qodobadaas faahfaahintooda ayaa goodhow idin soo gudbi doona daawadayaal balse markuu ugu horeysa daawade muuqaalka like saar oo la wadaaga asxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe inoo saarayo furanaya gambaleelka sidurbadiiba aad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga aragtida inagula wadaag markaana daawade ku soo dhawo qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa bilowday xaraashka hantida qaranka golaha abwaanada ayaa maanta barnaamij ka dhigay afafka hore ee tiyaatarka ee qaranka National Theatre iyagoo sheegay inaysan aqbali doonin in la boobo hantida qaranka maadaama uu dalka ku jiro xilli kala guur ah waxay wasiirada dawladda Farmaajo ee waqtigoodu dhacay Muqdisho ka bilaabeen dhaca iyo boobka hantida qaranka wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa warqad uu ku saxiixan yahay oo xafiiskiisa ka soo baxday 27 July 2021 lagu sheegay in shirkadda lagu magacaabo Xaabataako laga kireeyo dhul bannaan oo ku yaala dhabarka dambe ee tiyaatarka qaranka shirkadda ayaa loo fasaxay inay dhisato dhulka oo ay ka sameyso goob maqaaxi ah iyadoo arrintan ay ka falceliyeen golaha abwaanada oo maanta barnaamij looga soo horjeedo dhul boobka ka sameeya tiyaatarka hortiisa Dube go'aankan uu dhulka ku kireeyay waxaa la sheegay inuusan isaga ka imaan oo la og yahay Farmaajo oo awood uu ka haysto waxaana arrintan ay qayb ka tahay musuqmaasuq iyo maamul xumada madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dawlad kasta marka uu waqtigeedu dhamaado waxay caan ku tahay in dhulka danta guud ee xaraashto ama ay shirkado ka kireyso waxaana cadeen u ah in dhul ballaaran oo ku yaala banaanka garoonka diyaaradaha dhinaca waqooyi laga dhistay guryo gaar loo leeyahay iyo hoteelo laga soo bilaabo madaxda sare ilaa maamulka gobolka Banaadir waxay sameeyeen dhul boob maadaama ay xafiiska ka tagayaan waxaana lagu galayaa lacagta dhulka lagu iibiyo doorashada dawladda Farmaajo waxay dhawaan xaraashtay dhowr balog oo ceelal shidaal ah iyadoo ay bixisay ruqsado ay ku iibisay $100 milyan taasoo ku dhacday jeebka madaxda fadhiisa villa Soomaaliya geesta kalena daawadayaal hadeen eegno shaqaalaha NISA ayaa waxay ka cabanayaan mushaar la'aan guud ahaan shaqaalaha dawladda ayaa ka cabanaya mushaar wareer waxaana howlwadeenada badankooda xuquuqdooda la duudsiiyay bilii June July iyo sidoo kale Agoosto sidaan ogaan isla markaasina ay xaqiijiyeen ila loo qaateena waxa mushaar la'aan in muddo soo socotay ka cabanaya shaqaalaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxaana saacadihii u dambeeyay banaanka u soo baxay qaylo dhaanta howlwadeenada hay'addan sidaan ogaan isla markaasina ay sheegeen saraakiil muhiim oo ka tirsan NISA qayb ka mid ah shaqaalaha ayaa helay kala bar mushaaraadkii ay lahaayeen waxaana cabashada ugu weyn hadda qaba ilaalada gaarka ah ee Fahad Yaasiin oo agaasimaha hay'adda Fahad ayaa la filayaa inuu iska casilo xilka taliyaha NISA si uu ugu tartamo kursiga golaha shacabka ee 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay Faarax Sheekh Cabduqaadir waxaana lagu eedeynayaa inuu markaasi xuquuqaadkii shaqaalaha uu rabo inuu ku galo doorashada si uu u boobo kursiga Fahad Yaasiin waxa loo tixgeliyay inuu yahay shakhsiga fidnada ugu badan falkinaya tan iyo bilowgii 2017 waxaana dul hoganaya eedeemo waaweyn oo la xiriira gabood fallo uu galay tan iyo markii loo dhiibay hoggaanka nabad sugidda Fahad iyo koox kale oo Farmaajo ugu dhawaa intii uu xafiiska joogay ayaa doonaya inay gabaad ka dhigtaan baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si ay uga badbaadaan in lagala xisaabtamo jariimooyinkii ay geysteen guud ahaan shaqaalaha dawladda ayaa ka cabanaya mushaar wareer waxaana howlwadeenada badankooda xuquuqdooda la duudsiiyay bilii June July iyo Agoosto kooxda Farmaajo ayaa hore ugu faani jiray
in ay bixiyaan mushaaraad dhammaystiran. Ha yeeshee qayladhaanta shaqaalaha ee 3 bilood ee lasoo dhaafay ayaa ka dhigan in boob baahsan uu ka socdo xafiisyada ugu sareeya ee dalka. dhanka kalena daawadayaal haddeen ogno habargidir hoggaan la'aanta ayaa hoggaan ku riday kooxda ujeedkeedu ugu weyn uu yahay argoosi siyaasadeed iyo mid qabiil ee fadhigeedu yahay madaxtooyada Soomaaliya. Fahad iyo Farmaajo hoggaanku hayaan ayaa bilowgii bishii Febraayo 2020 madaxweynaha Galmudug ka dhigtay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kaasi oo ah ummi aan wax badan baran, aqoon oqool iyo sidoo kaleba ogaal horena aan lahayn. ujeedka Farmaajo wuxuu ahaa inuu afduubo hoggaanka deegaankaasi, kabaqaad iyo koofisaar aan aragti siyaasadeed lahaynna uu u dhiibo majaraha Galmudug si uu u fuliyo danihiisa guracan oo ay ugu horeeyaan hanjaminta habargidir oo beesha dhexe ka ah maamulka ku shaqeeya Dhuusamareeb. Farmaajo oo kaashanaya Fahad Yaasiin oo ah aabaha argagixisada Soomaaliya ayaa qorsheeyay inuu awoodda Al-shabaab u adeegsado gobolada Galgaduud iyo Mudug, waxaana qaybtii koowaad ee qorshahaasi hirgeliyay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo ku guuleystay inuu meesha ka saaro culimmadii Ahlusunna wal Jamaaca oo muddo ka badan 10 sano dagaal aan garab lagu siin kula jirtay argagixisada. inkastoo aan culimmadu cilmi siyaasadeed iyo adeegyo horumarin lagu baran, waajibna ay ahayd in ay bulshada ka hor wareegaan, haddana xaq uma aysan lahayn in jabkooda ay ku wiirsadaan Al-shabaab magac dowladeed wata, daciifnimo iyo dadnimo xumo ayayna ku eeday reer Dhuusamareeb in tusbaxyadoodii ay muuqaalo isaga soo duubaan wiilal ka yimid Baay iyo Bakool. waa sida ay qabaan dadka qaar. wixii ka dambeeyay xilligaasi oo ku beegneed bilaabashadii 2020 waxaa faraha ka baxay amnigii deegaanka, waxaana kala go'ay isku socodka magaalooyinka waaweyn. Al-shabaabkii ugu badnaa ayaana la isugu geeyay Galgaduud iyo Mudug si loo dhameeyo dadka indhaha u ah bulshada, inta kalena loogu andada awood argagixiso oo ay kadaal ka riixayso villa Soomaaliya. waa sida ay qabaan dadka qaar. 18 Diseembar 2020 waxaa gaalkacyo lagu dilay taliyihii qaybta 12aad ee militariga xoogga Soomaaliya General Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje Dagaari oo ka soo jeeday beesha Sacad iyo mas'uuliyiin kale. General Qooje wuxuu xilligaasi ku olanaa sidii deegaanada looga dulqaadi lahaa dhibaatada amni darro ee markaasi ku dul habsatay. xilkaasi laga dilay Qooje waxaa loo dhiibay nin ka soo jeeda beesha Mareexaan oo dhulka ay Galmudug ka degaan aan Al-shabaab weligiis ka talin, khatar amnina ku hayn, waxaase looga gol lahaa ka hortagga dagaal dadka deegaanka la galaan argagixisada. sida muuqatana qorshahaasi wuxuu noqday mid hirgalay. Al-shabaab waxay la wareegeen deegaano badan oo dhaca bariga iyo koonfurta gobolka Mudug. 27 Juun 2021 ayay weerar xooggan ku qaadeen deegaanka Wisil, halkaasi oo ay ku xasuuqeen dad shacab u badan. talaabadaasi waxaa ka dhalatay caro dadweyne, waxaana la go'aamiyay in Mudug laga xureeyo Al-shabaab. ha yeeshee hoggaan la'aanta habargidir iyo sidoo kaleba ka fiirsi la'aanta ayaa sababtay in lagu dhaco dabin Fahad iyo Farmaajo mar kale dhigeen. waxaa Muqdisho laga diray taliyaha ciidanka lugta General Bixi oo Mareexaan ah si uu u cuuryaamiyo dadaalada dadka deegaanku isaga kicinayaan cadowga ku dulabsaday, isagoo isaga dhigaya daacad dagaal diyaar u ah. ha yeeshee qorshaha loo soo dhiibay uu yahay inuu maalka iyo moodka habargidir ku dhameeyo dagaal aan wax natiijo ka soo bixi doonin. ku dhawaad 2 bilood oo dagaalo qaraar ka holcayeen gobolka Mudug, boqolaal dhalinyaro ahna ku nafwaayeen, ku dhawaad 20 gaari oo kuwa dagaalka ahna lagu waayay. Bixi wuxuu amar ku bixiyay in dib looga soo baxo deegaanadii la xureeyay, wuxuuna diyaarad u soo raacay Muqdisho. Bixi wuxuu ahaa generaalkii hogaaminayay ciidankii bishii Abriil dhiigga u daadiyay si ay Farmaajo kursiga ugu sii hayaan, wuxuuna hore uga qayb qaatay dagaalo sokeeya oo ka dhan ahaa beesha Hawiye. siduu hadda ku hogaamin karaa dagaal lagu xureynayo deegaanada habargidir waa isweydiin sida ay leeyihiin dadka qaar. Bixi saanad ciidan iyo gaadiid dagaal iyo asgar dagaalanta midna ma geen gobolka Gado ee kaligiis ayaa socday, waxaana la xasuustaa in diyaarado iyo dabaabaad ciidan maalin kasta isaga iyo kooxda madaxtooyada joogta u daabuli jireen gobolka Gado oo 11 sano ka hor laga xureeyay Al-shabaab. maanta wixii dhici lahaa waa dhaceen, waxaana banaanka yimid dabinkii qoolna ee dad badan muddada ka dhigayeen. hoggaan xumo iyo maamul la'aan ayaa muuqata, qorshe xumo iyo kheyradii beenta ahaydna waa lagu hungoobay. maxaa xal ah mise la joogaa xilligii la isweydiin lahaa su'aalaha hoose?
sidee habargidir ku ogolaatay in nin aan weligiis wax baran kaba qaadna u ah farmaajo uu ku fadhiisto kursiga madaxweynaha galmudug sidee habargidir ku ogolaatay in nin mareexaan u dhashay loo dhiibo xilka taliyaha qaybta 21aad maadaama taliskaasi looga fadhiyo inuu xureeyo deegaanada ay al-shabaab ka joogaan galmudug oo ah dhul hawiye sidee habargidir ku ogolaatay in dagaalka gobolka mudug uu hoggaan u noqdo generaal biixi oo mareexaan u dhashay isla markaana lagu yaqaan dagaal soo jireen ah oo weligiis kula jira habargidir sidee cabdi qaybdiid axmed macalin fiqi iyo saadiq john ku fahmi waayeen in ujeedku yahay in iyaga la kharijiyo dhalinyarada la socdana la dhameeyo ma waxaa la waayay generaal u dhashay habargidir oo hogaamiye howlgalka dareenka shacabka ku yimid ee bilii la soo dhaafay ka socday gobolka mudug ma ku caddahay in farmaajo iyo biixi oo iskaashanaya uu u hirgalay qorshahoodii ahaa inay maalka iyo moodka habargidir ku baabi'iyaan dagaalka si dadkaasi qabka u saaxiibka ah loo hanjabsho marka laga yimaado qoorqoor beeshan waa inay arrimahan wax ka weydiiso golaha hogaaminta beesha habargidir oo bishii Sebtembar 2019 68 xubnood oo Professor Cabduqaadir Maxamed Shirwax hogaaminayo loo wakiishay aaya ka talinta beesha habargidir waxaana warbixintan qoray Guuleed Faarax oo kamid ah bahda KED Media Online gudaana daawadayaal inaga inta barnaamijka falaqaynta wararka ee janarka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan like subscribe inoo saartan iyo barnaamijkan kiisa kalena nabadgelyo